kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay dunida ee Hurfadh Media kala walba daawadayaal kala soo jirteen dabcan waxaan mar walba jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo daawadayaasheena markaasi inta badan geed fadhiga ahaa wararkeena sida weyn ugu xidhnaa oo runtii aad uga qayb qaata wararka faafintooda oo haday tahay wararka sheergaleyntooda iyo inay la wadaagaan asxaabteena maalin walba cusub daawadayaal mar walba waxaan ku guurgelinayaa inaad aad uga qayb qaadataan barnaamijka faafintiisa inaguna in mar walba aynu gaarsiino ummadda Soomaaliyeed wararka ugu dambeeya caalamka iyo waxyaalahan dunida hadeerta u eeg in la bacsanayo ka muuqata qodobada aynu maanta aynu qaada dhigi doono isla markaana ay mid isku taagi doono waa labadan qadiyadood ee dabcan aan horey ku kala sheegay qadiyad waa qadiyad ku saabsan dalkan Turkiga oo runtii ay soo fataastay arrin aad iyo aad u weyn kadib markii dalkaasi uu indhaweytay dhinaca dhaqaalahana aan ogeyn inuu la daala dhacay lacagtiisa liirada ah oo aad u leexday haatan waxa ku soo foolay dalkaasi Turkiga waxa uu eeg daadad dadka ka soo qaxi doona magaalada Idlib hadii dagaalku uu qarxo saacad kastana la filayo inuu qarxo waxa laga digayaa in dalkaasi uu gali doono marxalad aad u daran oo runtii ay taas qodob ay noqon doontaa waxyaalaha saameynta ku yeelan doono iyo waxyaalaha haatan ee dalalkaasi ay doonayaan inay ka hadlaan taana waa qodob kale daawadayaal doonayno inaynu ka hadalno oo runtii aynu diiradda saarno waxa kamid ah arrinta ku saabsan ama qadiyadan ku saabsan dalkan Ruushka oo aad moodo in uu indhaweyto ama sanadihii ugu dambeeyay uu nabayay hadeertana aad moodo inuu waxyaalo yaab leh uu la soo baxay oo runtii aad iyo aad u qadiyad badan marka aan ku horeeyo arrinta Turkiga qaybta aan ku bilowno arrinta dalkaasi Turkiga iyo waliba xasaradan dalkaasi Suuriya sida uu saameeyo karto gobolkan Idlib oo xuduud la leh dalkaasi Turkiga waxa ku nool dad gaaraya 3 milyan oo ruux 3 milyan oo ruux oo waliba waxa la eegay marka la eegay waxa statistics-kii u dambeeyay ama yani barnaamijkii ugu dambeeyay dadkaasi lagu hilaadiyay ama hilaadii ugu dambeysay waxa lagu qiyaasay in dadka badankoodu ay yihiin dumar iyo carruur waxa la sheegay in 900 oo kun oo qof ay yihiin carruur da'yar oo 15 ka yar macnaheedu waxa weeye marka saddex meelood laga dhigo hal meel waa carruur waxaana kaloo la aaminsan yahay in ku dhawaad 800 oo kun oo qofna ay haween yihiin taa macnaheedu waxa weeye in kala bar dadka meesha jooga in ka badan kala bar ay yihiin dad maata oo runtii ama dad jilicsan oo ama carruur iyo dumar ah ama dad dabcan aan ahayn dad loo quulo xabad iyo dad dabcan la barakiciyo midna aan ahayn waxaana loo maleynayaa in arrintan ay noqon karto wax kamid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee caalamka dirto aad wax uga bedeli doono haday tahay ama dhinaca cuqubada ha noqoto ama dhinaca saameynta dhinaca siyaasadda ha noqoto waxyaalaha ugu dhibka badan hadeerto arrintan markaas dalka Turkiga ay saameyn ku leedahay dalka Turkiga markii hore waxaa joogay 3 milyan oo ruux oo qaxoontiga hore u joogay 3 milyan oo kalena hadda day yimaadaan 6 milyan bay noqonaysaa dadkaasi dalka Turkiga inkastoo dadku ay yihiin dad aan cusuriyeyn ahayn oo aad u wanaagsan oo iyagu aan dareemin inta badan waxa dawladoodu ay siiso dadyoga walaalahooda inta badan dad aad deeqsiin oo haddana waxa walaac uu ku imanaya culays ayaa soo fuulaya aad u xoogan waxaana aad iyo aad wadnaha farta looga hayaa in dalkaasi khatar kale oo dhinaca dhaqaalaha ay soo food saarto iyadoo oo dalku uu sidoo kale uu ka fakarayo in arrintan hadii wadamada Yurub ay jooji waayaan ayaguna inay dadkan ka leexdaan oo u sii daayaan dalka Yurub inay qaadaan taas way tan hadeerto arrinta cirka ku sii shareeraysa waxa ay kala muuqata in golaha amaanka qaramada midoobay arrintii ay doonayeen in gobolkan Idlib wax laga qabto gabi ahaan bay ku fashilmeen waxa jirtay shalay in lagu soo hadal qaaday hadalkii ugu dambeeyay madaxweyne Donald Trump oo ahaa fariin cad oo ku socotay golaha amaanka qaramada midoobay inay Idlib wax ka qabtaan iyo in uu dalkaasi Turkigu uu talooyin kale iyo isku tash u gaaro isku tashiga madaxweynuhu ku hanjabayo waxa uu kaliya inuu dadkan dalala qaybsado oo dadkan xeebahan ay ka ilaalinayaan xeebtan agent la yiraahdo isku xidha dalkan Greek waa badan yar isku xidha dalka Greek iyo dalkan dabcan Turkiga uu ka leexdo oo dadkaasi loo sii daayo inay Yurub qaybteeda ay qaadato oo ay qaybteeda yani ay ka gasho oo ay dadkaas adduunka dhinaca ka galaan maadaama Turkigu xiriyo inta leeg oo lixaad iyo malaayiin dollar oo ku baxaysa oo san hadeerto doonayeen inuu ka qasiro asagoo loola dhinaca dhaqaalaha ku jira markaas hadal bixiyaasha waaweyn ee dalkaasi Turkiga waxay aad iyo aad wadnaha farta uga hayaan in dawladda ay lacag kale ku qasirto arrintan inay kol kale dhaqaalihii dalkaasi jilbaha uu dib ugu dhacayo oo lacagihii la doonayay in loo wareejiyo ama dabcan loo waarido in lagu kaabo dhaqaalaha dalka gaar ahaan lacagta dalka ee la adkeeyo ama dadaalada ugu jiray in ay noqon doonto in dadkan soo qaxay iyo dadkan soo
barakacay dumarka iyo caruurta u badnaanaya in dabcan lagu khasiro ama la geliyo waxaa arintaas si weyn u xustay saddex qorshe ayuu Turkigu keenay oo uu soo jeediyay dalalkan arinta lagu kale oo ka mid tahay Iran oo ay kamid tahay dalkaasi uu kamid yahay Ruushka iyo waliba dawladda Bashar al-Assad iyo sidoo kale beesha caalamka oo ay kamid yihiin Mareykanka iyo Britain iyo waliba dalalkan ugu turturoon ee yiraahda golaha ammaanka qaramada midoobay ayaan hor fadhinaa gabadha qaramada midoobay u fadhida dalkaasi Britain gabadha la yiraahdo Karen Pence ayaa iyadu aan laba gaban in qorshaha Turkiga iyo madaxweyne Erdogan uu hayo ay tahay mid la isku haleeyo mar ay ka hadlaysay golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa xalay goor dambe sheegtay in Turkigu uu la yimid waxay ku tilmaantay hadal cuntami kara sida daradeedna qorshaha Turkiga la taageeri karo qorshaha Turkigu marka waxa weeye in la sameeyo tirakoob xubnaha meesha dagaalyahanada ku jira laba dagaalyahano ayaa meesha ku jira koox waa Israaci waa kooxda loo yaqaano ama loo bixiyo kooxaha wax qarbuda dabcan maxay islaamiyiinta la yiraahdo kooxna waa koox kale oo mucaarad ah balse xiriir la leh dalalka Qatar dalalkaasi iyo dalkaasi Turkiga iyo waliba dalalkan hadda ka xiriir furtay ee markii hore taageeri jiray Saudi Arabia kamid yahay dalalka Carabta aad taageeri jireen oo ay kamid tahay ciidamada loo yaqaan ciidamada xorta ee Suuriya marka qorshaha marka wuxuu leeyahay madaxweynaha dalkaasi Turkigu marka labada qolo la kala cadeeyo waxaynu sameyn karnaa uu leeyahay in qoladan dabcan mucaaradka ah goobo cayiman la geeyo kooxdan kalena loo negotiation wax la yiraahdo ama wada hadal inta la furo lagu tirtirsiyo inay dadkan badbaadiyaan oo hub ka dhigaan waa kooxaha islaamiyiinta kadib markay hub ka dhigaanna ay dadkooda ku biiraan kadibna ciidamada dalka Suuriyana aan looba ogolaanin in ay soo galaan dagaalka iyo furimaha iyo magaalooyinka inay soo galaan ma looba ogolaanin sida markaasi goboladan Turkigu uu qabtay gobolkan Afrin oo kale uu kamid yahay magaalooyinkan waaweyn kale magaalada Manbij ee Turkiga iyo Mareykanku hadda wada maamulaan ay kamid tahay dadkii deegaanka lahaa la mobilize gareeyo ama la abaabulo oo loo dhiibo talooyinka kadibna hadii wada hadaladan nabad ka kala soconaya magaalooyinkan Soch ama Astana ka soo bilowday dalkaasi Kazakhstan iyo waliba dalkaasi la yiraahdo Switzerland magaalada Geneva ay ku biiraan oo kadibna arinta wada hadal nabad lagu dayo dawladdan Bashar al-Assadna iyo hubkan kiimikada la haliilasana halkaas lagu joojiyo waxyaalaha kale muhiimka ka dhigaya arinta waxa weeye dadkan marka ay wadankan Turkiga ay soo galaan waxa lagu qiimeeyay inay marka ugu horeysaba ku baxayso lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar oo la doonayo in dadka marka horeysa dad qaarkood way xanuunsanayaan qaar waa dhaawac bay noqonayaan qaar waxay u baahan yihiin nafaqo caruurta qaarkood waxa ku dhici karta hawo gadis yani waxa ka dad adigu 3 milyan oo ruux gaaraya oo dabcan waxa damaanadoodu ma yaraanaso dabcan waa taata la leeyahay burbur xoogan ayaa dhinaca dhaqaalaha ee dalkaas ku imaanay waxay ahayd shalay ama daraad mareen ka hadlaynay dalkaas Sweden oo hadeerto qalalaas isagana siyaasadeed ka taagantay wali aysan dawladihii aysan cidna dawladii aysan wali ama dawlad wila hadeerta la soo dhisin ayaa sanadkii 2015 wuxuu qaabilay dad gaaraya 163 kun oo qof dhaqaalihii dalkaas ayaa burburay waa 163 kun oo qof intaynu ka hadlano waa boqolkiiba wax boqolkiiba 3 bay ka tahay marka qiyaasta xoogan iyo khatartan dhinaca dhaqaalaha ee dalkan Turkiga iyo culeyskan ku soo wajahan marka qaarkood hatta madaxweynaha dalkaas Turkiga wuxuu ku sigtay inuu leeyahay arintan waa arin la doonayo in anaga nalagula dagaalamo oo anaga nolol jeeda meesha ugu dhaweey dadku aadi karaan way tahay waayo dhankan Iraq dadku ma qaxi karaan dhinacan Lebanon dadku ma qaxi karaan marka xaggan Iraq day qaxaan waa adigoo hargalay lagu hargalay bay noqonaysaa Iraq iyadoo ay xoogan ka taagantay xaggan Lebanon awalba awoodda dhaqaale ee dalkaas iyo dalahaan iska yara hadeertana yani wuxuu la ceegaagsan yahay qaxoontigii Falastiiniyiinta iyo kuwii hore ee dadkan reer Suuriya runtiina waa wax laga xanuunsado in dad dhan oo intaas la doonayo in loo barakiciyo xukun daraadii waa wax aad iyo aad looga jidhnaxo in aysan jirin marxalad caqliga ku shaqeynaya oo arintaas sameeyay xataa haweeneyda qaramada midoobay fadhida dalkaas Mareykanka gabadha Nikki Haley waxay ku tilmaantay ciidamada dagaalka wada ee Bashar al-Assad ee ay taageerayaan Iran iyo waliba dalkaasi ay taageerayaan dalkaasi Russia inay yihiin kuwa unprofessional ama dad aan professional ahayn yani dad leh khibrad ciidan waxay tiri waxyaalaha ay sameynayaan caruurta way leynayaan goobaha ay galaan kufsi way ka geysanayaan yani waxay mid kale u tuurayaan bay tiri hubka wax aan ay haba yaraatay qiyaas lahayn oo yani haday tahay diyaaradooda dagaalka iyo haday tahay hubkan culus ay tuurayaanba waxay ku
tilmaantay inay yihiin hab dhaqan argagixisanimo isla markaana ay tahay in iyagu yihiin argagixisada dhabta ah. Ruushku isagu wuxuu leeyahay dadkan la dagaalamaya argagixisaha Mareykanka waxay u hiilanayaan argagixis hiilka Mareykankuna iyo waliba reer galbeedkuna ma cadda marka arrinta timaado ma cadda waxaysan u cadayn waxay leeyihiin ayaga inay talaabo ka qaataan meesha waxa shuruud baa ku xiran shuruudda ku xiran waxay leeyihiin waa in ciidamada dalkaasi Suuriya hadday isticmaalaan hubka loo yaqaan kiimikada baan weerarana hubka kiimikada haddii ay isticmaalaanna weerarkoodu wuxuu noqon karaa waa weerar cayiman ويعني وبريمتيف يعني ووير أدي أدو عيمان أو يعني وحلو يقانو يعني وير أي هراي لما تشرو هراي وير قادن واحد بدنا أودي دلك سوريا كمان بدري إن كستو أيوة كتوخيا إني بقول كيف تطبيق تون ديار دي بربرين حصل شيء قرشها على بعض من الحين رجع ضي أرض كانوا دوني أي إلا سما يحلو يقانو نو فلاي سون أما أجدن أو كأجن طولمات كميليتري جبيك سوى كعاجن تاز وحادي أحاول هاي إن عندما بشار الأسد كشول تو كوبطه أو يعني دبعت هذا جسنا أنا أحد ناتو دياره هبك أو هب توري يسونا أنا هني تازنا إن كستو أو خري مريكا ودي دنا هذا والدار بضيع أنا ساعته بس وحان شرين هشيس دول المسجد أو أمريكان يروش وده جري كران هوا يراته لا الله إلى هذا يرتوح حلا أو هشيس دول المسجد أنت كم جري كران يعني روشكو حدوني أرنتن إني أود ونقطة أو مال أي يعني دولة الدلكاسي بشار الأسد أنتي أود ودي عشتو ده كان مقوني الصو عيدا كروشكو أي ماشي صدقوا وين كفرتان إيران سيدو كله دو خاصي هيستا وحدوني على بدو دبا إن أي نقطة ما دام الله بدنا يو إن مريكانكو عدود أهان بريقة دحكول كأي تماده وكحو جنيه هي دلال كان خليج كأما أو سياسة هنجا عن صار في عن مريكا كل ليه أيجو إن يجع عن صار أدي ونكسن أو أي ليشان دلال كاس سوريا ولبا أو يسلجي ملتركويشان ويا مريكانكو يسلجن حديد وكليه هي مجالات الضحى ولبا استراتيجية بحسن لنا على قالها وكليه هي يولي دينا سياسة هانا سيدا اسكو تاغيران سيلا ميدا ايو دونيا روشكو مادام وصول بك عليه اما وصورك عليه انو تاسو كلام موجيه هاسياشي تركيغا اياد مودا انو هادر تنقضي عوص وحاليم لو مرود ماشي كودرا عوص باكو بابا وايو تركيغو دينعنا اما فيعنا هادي اود بشار الاسد الصور نقطة بشار الاسد دي تركيغو خوري وكلا دقاقين وأود هنا ومفعنا وسياسة هنا ومفعنا وقول درس سياسة وطن لبعض الروشكي التركي وحياة بدن يدنوين بدن بيودليهن خير قلبات كنا وحين نقدر نمن عن يعني سياسة بالسلم ماشي كقاعدة كرين أنت وجبنا وحكيت مدحونا هذا حتى انطلع هي دلك أمريكا أو أسوق أن أبي وجو ضخ بدن وحين أما يعني أبتات وحين أما أن دونين بإنه لقيه شو أرمها وين عالم كذا عيا جرهان إنه روش كجرب أرضه aad uma doonayo laakiin waxay khasbaya saraakiisha yani elite ka loo yaqaan dalka Mareykanka haday yihiin lamaha amniga qaranka Mareykanka ragga haya haday yihiin aqalada labada aqalka sanadka aqalka Congress oo iyagu dad siyaasiyiin maadaama madaxweynuhu siyaasaddu ku cusub yahay oo garanaya hadii ruushku uu more awood ruushku helo ama hadii uu awood badan helo in ay taswiiqiso saameynta Mareykanka ee caalamka iyo waliba gobolka sida daraadeed wadamada midowga Yurub laftoodu ma hayaan ayaga koodu arin cad oo arintan uga hortaga dalka Britain wuu boodaya oo dabcan ayaga iyo Britain iyo Ruushka wixii soo kala maray sumayntii labadii qof ninkii laba aan lahaa iyo gabadhiisi wixii ka dhacay deegaanka Salisbury ayaa wali ay xasuusan yihiin oo waxay aad Britishka uga xanaaqsan yihiin in dalkoodii dad lagu sameeyay colaad dabcan arintaas aad bay u kicisay shucuurtii Britishka haseeshee Britishkii ayaa saameyntoodii siyaasadeed ee midowga Yurubna iyaduna limited noqotay ama ay noqotay mid kooban oo yani ay noqotay mid aad option yar oo haysta maadaama iyaguna Brexit wax la yiraahdo isticmaalay qaybta dambe Ruushka ayuu ku eegi doonaa